السلام عليكم. دولة بدلي عاصمتهooda caasimad markii la qeexayo waa meesha uu ku sugan yahay madaxweynaha boqorka ama qofka talada dalkaas hayo noocu doona ha ahaadee waana xarunta ay ku yaalaan dhammaan waaxaha dawladaha kala duwan sida wasaaradaha iyo waaxaha kale waana xarunta ay ku yaalaan sidoo kale safaaradaha dalalka kale haddaba waxaa jira dawlado badan oo bedelay caasimadahooda arrimo kala duwan awgeed halkan waxaan ku soo gudbinaynaa maanta dawladahaas kuwa ka mid ah dawlado bedelay caasimadahooda haddaan soo qaadana dawladda ugu horeyso saldanada Cumaan kadib 40 sano ay magaalada Salaala ee caasimada dalka Cumaan ayaa 1970kii loo bedelay magaalada Masqat waana markii uu talada qabtay sultaan Qaabuuska hadda xukuumadda dalkaas asaga ayaana caasimada ka wareejiyay Salaala una wareejiyay Masqat wadanka Ruushka muddo aad u dheer ayay magaalada St Petersburg ahayd caasimada dalkaas oo ah magaalooyinka ugu waaweyn oo kuna dadka badan Ruushka waana magaalooyinka Ruushka ee dhaco qaybta Yurub laakiin 1918kii ayaa loo wareejiyay caasimada Moscow waxaana laga xayuubiyay caasimadnimada St Petersburg sidoo kale Moscow 1922 ilaa 1990kii waxay ahayd caasimadii midowgii Sofiyeedka ee burburay 1990kii wadanka Brazil waa wadamada bedelay caasimadahooda 1961kii ay Braziliyaanku isku raaceen in magaalada Brasilia ay noqoto caasimada dalka kadib muddo dheer oo ay magaalada Rio de Janeiro ahayd caasimada dalkaas markii la leeyahay caasimad macnaheedu kama dhigno in ay tahay magaalada ugu weyn dalkaas ama magaalada ugu dadka badan arrinkan shaqo iskuma lahan waxaa dhici karto magaalo yar dad badan ay ku nooleen inay noqoto caasimada dalka sida Mareykanka tusaale ahaan Washington waa magaalooyinka ugu yar uguna dadka yar dalka Mareykanka dalalka bedelay caasimadahooda waxaa ka mid ah Myanmar waliba waqti aanan aad u fogeyn 2005tii caasimada dalkaas wixii 2005tii ka hor waxay ahayd magaalada Rangoon laakiin taariikhdaas ayaa loo bedelay ama loo wareejiyay Naypyidaw Nigeria galbeedka Afrika Nigeria waa dalalka bedelay caasimadahooda arrimo la xiriiro dadka aadka u badan iyo ciriiriga ka jiray magaalada Lagos caasimadii hore ee dalka laakiin 1991 ayaa laga wareejiyay Lagos waxaana caasimad laga dhigay magaalada Abuja magaalada Lagos ee caasimada laga wareejiyay ciriiriga darteed waxaa ku nool 21 milyan oo qof sidaas darteed waxaa adag in la isu kala gudbo si loo gaaro xarumaha dawladda arrinkaas ayaa keenay in Abuja laga dhigo caasimada Nigeria wadanka Cote d'Ivoire Ivory Coast waxaa laga yaabaa dadka inta badan in ay magaalada Abidjan u maleeyaan in ay tahay caasimada dalkaas arrimo la xiriiro in ay tahay magaalo aad u weyn uguna dhaqaalaha badan dalkaas laakiin run ahaantii caasimada dhabta ee dalkaas waa magaalada Yamoussoukro oo 1988 loo wareejiyay inay noqoto caasimad sidoo kale dalalka caasimadahooda bedelay waxaa ka mid ah Tanzania sidoo kale waxaa laga yaabaa dadka qaar inay caasimada dalkan u maleynayaan inay tahay magaalada Dar es Salaam oo ah magaalada ugu weyn dalkan uguna caansan laakiin run ahaantii 1973 ayaa laga bedelay magaaladaas inay tahay caasimada dalka waxaana caasimada laga dhigay magaalada Dodoma taasoo ah in haddii aad baarto caasimada Tanzania aad arkaysa inay tahay magaalada Dodoma ee in ahayn Dar es Salaam Kazakhstan wadamada muslimiinta wadanka ugu dhulka weyn ee dhaca mantiqada Aasiyada dhexe iyo qayb ka mid ah Yurub markii uu burburay midowgii Sofiyeedka Kazakhstan noqotay wadan madax bannaan ayaa caasimada waxaa laga soo wareejiyay magaaladii hore Almaty ee ahayd caasimada dalka waxaana loo wareejiyay magaalada Astana arrinkan waxaa ka dambeeyay ama waxaa caasimada Almaty ka soo raray oo Astana u soo raray Nur Sultan Nazarbayev dawladaha caasimadahooda bedelay waxaa ka mid ah Pakistan kadib 20 sano markii Pakistan iyo Hindiya ay kala qaybsameen ayaa Karachi oo ah magaalada ugu dadka badan Pakistan laga soo wareejiyay caasimadnimada waxaana caasimad laga dhigay Islamabad taariikhdu waxay ahayd 1967 Karachi waa magaalada ugu dadka badan Pakistan waxaa ku nool 14 milyan oo qof waxaana ku soo xigta magaalada Lahore ee Punjabta Pakistan halka caasimada Islamabad ay ku nool yihiin 1 milyan kaliya taasoo ah in dadka Karachi uu 14 mar ka badan yahay dadka ku nool caasimada Islamabad